waxaan aaminsanahay ra'iisul wasaare ku-xigeenku inuu yahay naajix oo runtii ku guuleystay faylal waaweyn oo qarankan uu lahaa sidoo hadda asagu akhrinayay kamida kuwaas waxa weeye in dad la shaqays inuu dadka mas'uuliyiinta walaaladiisa inuu aanan arkin ilaa hadda qof mas'uul ah oo la shaqeeyay oo ay wax kala sheeganayaan runtii marka xinkadaas iyo aqligaasna waxa uu asal ka daacadnimada iyo deganaanshaha marka aad iyo aad baan runtii ugu hambalyeynaya qof mas'uul amaanta Soomaaliya xilligay maraysa oo xil qabtay ummadan u qabtay oo ceeb la'aan Ilaahay ka saaray runtii waa inuu yiraahdo alxamdulillah uu najaxay qofkaas in adigoon ceeb lahayn oon hanti dhowr kugu dhegdheganayn oo maxaan ku dhahaa shacabka Soomaaliyeed ku eedeynayn oon dhiig gelin oo aan dhibaatooyin kala gelin oo aan lagu necbayn inaad xafiiska banaysaay waxay tahay guul runtii aad iyo aad u weyn ayay guulaha waaweyn ee qofku gaaray ay kamid tahay maxaa jira duruufta dalkeena ka jirta ayaa dad ceebaysa runtii si kastoo u wanaagsan tahay iyo si kastoo niyadaada u fiican tahay duruufta ku ceebaynaysa runtii mar kale waxaan u mahad celinayaa walaalkay Khadar oo aan runtii aan ku celinayo oo amaanayo oo aan leeyahay waxa waaye haddana nagama fogid waa xildhibaan wixii looga baahdo oo Saalax u baahdo ama anu uga baahdo meel dhow degayo waanu yeeranaynaa Ilaahaygiis nagama dheeraanayo waana kaaga mahad celinaa qarankaagana waa kaaga mahad celinaa waxa uu soo qabatay waxaan rajaynaynaa ka faa'iideysan taa intaasan kaga tagayaa saaxiibkay Saalax wasiir hore khabiir waaye wadankan muddo ka soo shaqeynayay soo consultant ee soo shaqeyn jiray wasaaradda badan ka soo shaqeeyay waxa way wadankan hay'ado badan ka soo shaqeeyay markii dambena wasiir buu noqday laba wasaaradood buu wasiir ka soo ahaa marka aniga markii ugu dambeysay oo aan wasaaradda dastuurka ka sii baxay ayaan isku soo gaarnay bas laakiin ma wada shaqeyn runtii Saalax nin asaguna wadankan saas ugu soo shaqeeyay way macruufa dhaqan yaqaan kala suugaanta jecel labadoodu waxay ku fiican yihiin waa niman suugaanistayaal dhinaca suugaanta iyo maxaan ku dhahaa af Soomaaliga iyo dhaqanka Soomaaliyeedba rag yaqaan waaye runtii niman kala fog ma aha waxaan rajaynayaa asagana nin aqoon-yahan waaye nin runtii aan wax badan aan laga filanayo way waxaan anigana insha Allah ballan qaadayaa inaan sida ugu wanaagsan oo qof loola shaqeeyo inaan wada shaqeyn doono hadii Ilaahay yiraahdo waxaan rajaynayaa ninkii muhiimka ah oo shaqooyinka adag noo qaban lahaa runtii inuu yahay rajaynayaa energy fara badan baa ku jira runtii dalkanna uu u baahan yahay nin dhalinyaro oo energy iyo aqoonteedii iyo xikmadeedii isla wata uu u baahan yahay intaasna waxaan ka rajaynayaa oo aan hubaa inuu Saalax in badan leeyahay runtii Ilaahay idinkiisna waa ka faa'iideysan doonaa marka soo dhawow ra'iisul wasaare ku-xigeen wax yar baan ka soo horeeyay waxaan rajaynayaa inaan si fiican usoo jaan qaadi doono waanu imaan doonaa ayadana xilligeeda laga hadli doonaa wasiirada halkan fadhiya ayagana oo loo kala xil wareejin doono ayaa waxay soo qabteen iyo waxay rabaan inay soo qabtaan ay sheegi doonaan fursadaas laakiin waxaan rabaa dadkan halkan fadhiya khiyaarta sharafta leh xafiiskan ka tirsan runtii waa meesha muhiimka u ah hadda mixwarku sheegay ra'iisul wasaaruhu oo ama engineki wax ka dhaqaaqay dadka dhaqaajinaya halkan ay fadhiyaan marka waan u mahad celinayaa dadka muddada dheer ka soo shaqeeyay halkan meeshan soo gaarsiiyay aad iyo aad ay u mahadsan yihiin waxyaabaha wadankan mushkiladda ku abuuray waxa weeye in waxa la iska rabo inaan dadku aad u ogeyn